kulanti wacan u wanaagsan qayaarta awada naga daawanaysa kusoo dhawaada warka telefishinka Hilaac madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta daafuray shirka saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahnaduqa magaalada Muqdisho oo maanta ka qayb galay dibadbax lagu soo dhaweynayay doorashadii ka dhacday dalka Turkiga oo ku guuleystay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xamza Cabdi Barre oo ka qayb galay kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre iyo siyaasiyiin kale oo koor yimid go'aankii ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo gaaray magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynay ee telefishinka Hilaac